markana waxaynu u gudbi doonaa qaybtii ama dhinacii ururada siyaasadda waxaan u yeeri doonaa xasuusnaada shirkan waxaa iskugu yimid ururada siyaasadda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan Minnesota oo iskugu yimid in ay aragtidooda iyo fikirkooda ku cabiraan xaaladda cakiran ee deegaanka ka jirta waxaan u yeeraynaa markana xildhibaan Carab Maxamed Aadan oo ah golaha dhexe ee ururka ONLF ku soo dhawow السلام عليكم ما شاء الله نواد مهسنتهين الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الحبيب المصطفى ولا ليال مركب كوباد وان إذين مهد علينا يا دمان ولا لها كسو قيب قلي مدشن سمت بحنتا دور الديان كسو مالدا رنتي هول كستا أما سمت بحن كستا waxaa isoo qadima dadka labeentooda iyo inta geesiyaasha ummadda Soomaaliyeed waana taariikh jiri jirtay markasta marka waxaan rabaa dhowr qodob dul istaago marka koobaad inta aanan hawlahan kale aan u galin waxaan jeclaan lahaa sida ay walaaluhu ku bilaabeen deegaankeenu waxa uu ku jiraa marxalad adag oo abaareed marxaladaas labaynu kala qaadaynaa mid waa tu rabaaniya oo tan adduunka oo dhan ka dhacda weey midna waa tu la yiraahdo man made وقعنتها لو سمي سير قعنتها لو سمي ما باربع قعن لو سميها ها سيابا لو سميها جبت أبارتك عن فهمت المامية وحا قعنتها لو سميها تنرباني قاعد على ملك استقل على مينيسوتا كده على مركي وينتر كلا ويا أباربع كده أو وينتر كويا هذا وضع كان برف كاسو كله ليها باركة إكتان الدون كلا يديجانا ذا كلا سوى لكن هذا كده واجي أبارتن واكجرتي نودستان كيا جبوين سومالي جبوت مالي كجر مال لكن لا أشياء ما أنت دعي ساي مال أي كذا عادي ولا مجرته مركا سبب تكذا يسمان ملوح هويان ونربينا نفيه مركا الدولة دي اللي ربي إن أي هوش عيدا كهر تكتو أو ما رئيسه أي كجبته أو يسكدك ترتو أو يسكين ترتو أو أي كنت لقى شو مدوينا بابا بل أي ولي بوس حباشو مركا توح لي دروا مان ميد راوت تقاليل لوجو تلاقي مركا الله خيامه تقاليل لوجو تلاقي مركا الله قريه ضد كدمانة يا مركا الله قريه وذلك يسوي وزيره يعني إذا عذا كهلا ولا واحد انتهى ملك مع الأسف ما نكحوا معي رنتي أذبان وقحوا معي واللي بدت كاسي ضد وقت هذا قارك هل كان شيء جري بقى أنا سيب درو ضد هل كان شيء جري أو ما درنا يسمى تبحنا يعني شيء جري ما أنت إني ضد كدمانة oo maartay aabala caruurtay diiban ku waayay in la oos xabaalo oo laba geeriyaad maartay la geliyo la yiraahdo been baad sheegtay waa nasiib darro weeyaan aad baan uga xumahay waliba waxaan ka xumahay dadka noocaas inaan urur la kala mid ah baan ka xumahay waliba aad uga xumahay inaan urur nugula jireen dadka noocaas inay urur nugula jireen baan aad uga xumahay laakiin ilaahay baa naga soo qabtay alxamdulillah waxaan jeclahay inaan dul istaago dhaqaalaha deegaanka soo gaaray intee buu dhan yahay walaaleen baa ka dhawaajiyay laakiin waxaan rabaa ma aha waxa la sheegayo 4.7 billion ber 4.7 billion ber ayaa dhowrkii bilood u dambeysay deegaanka deeq loo soo gaarsiiyey dollar ahaan maxay noqonaysaa 93.5 milyan oo dollar wey 93.5 milyan oo dollar wey marka dollar ahaan loo bedelo deegaankeena oo dhani waa 93 degmo haddii loo qaybiyo 93 milyan degmo kasta waxa ku hagaagaysa 1 milyan oo dollar bal qiyaas 1 milyan oo dollar oo dadkii leeyihiin waan oomanahay oon baan la baaba'aynaa warna waraabiya wadalkeeda runtii caawa waxay naga xumaaday projectorkii laakiin waan idin tusi lahayn dad aydan ilinta ashateen ilinta midan ashateen hooyooyinka qaarkood iyo caruurta ku ooyaya war oon baan la dhimanaynaa waraabiya dawladdu waxay maalin kasta noo sheegtaa in ay xakameeyaan oo ay hawsha ku dhex jiraan بالله عليكم إذن كان إذن ويدي إنتنا كمان نان إمن الماسك إيو
maxay ahayd qaaradaha Far East Asia kama inaan imanin dhammaanteen waxaan ka nimid deegaanka ruux kasta degmadiisi waa uu ka warhayaa inteenan bal mid kan kasta waxa laga yaabaa inuu ku hawlan yahay qoys ama degmo ama qabale inuu waraabinayo deegaanka waan wareysanaa waa kuma ruuxa dhigi kara degmadeedii ama aan degmadan ka soo jeedeen xogagalka u ahaaba wax la gaarsiiyay fadlan bal farta taaga ma jirto dadkii isxilqaabay inay iyagu dhaamiyaan ku talagalay leeyahay dhafoorka xabad laga waan ogahay qabri daaray ka dhacday dad dhaaminayay oo waxa weeye lacag ayagu jeebkooda iska dabarayay in la yiri labada maxay ahayd kayla ama checkpoint-yada inaadan biyaha daad adoo wada lagu arko xabad baa madax laga dhufanay waa si darro kale wey dhaqaalahan isaga ma aha waxaan iska qoranayno waa ka dhaatadeedii meelaha ay ka timid baan wada haynaa maamul kasta yani waa markii koowaad ee taariikhda deegaankeena dhaqaale intan la eg oo abaar loogu talagalay ay soo gaadho muddo kooban intan la eg laakiin abaarta haddiiba laga dhimanayo soomaalida waxay tiraahdaa dhicisku inta birta loo soo wadu ka baktiyaan dadkii hadday ka baktiyaan maamul iyo qorshaan ku jirnaa waan hawshii baan ku dhex mashquulsanna waxba inooma tarayso ummaddana waa rugmanaysaa marka ilaahay aan u barina marka koowaad ilaahay bay gacantiisu weyn tahay ilaahay hay naga soo gaadho kuwan inoo wasxabaalaya ee raba dadkeenu inay rogmadaan ilaahay naga soo gaadho billahi calaykum salaadaha markaad tukanaysaan ilaahay u barya sababtaa dadkaani ma lahan dawlad u gargaarta dawlad garab istaagta ma lahan dadkani waa dad horeyna loo wasxabaali jiray haddana kuwa sheeganayay inay dadka u gargaarayaan ay u wasxabaalayaan maanta marka waxaad ogaanaysaan waxaan horta ma aha wax iska dhaca waa policy qoran weeyaan oo abasinia policy u degan qorshe u degan dadkan in la baabiyo hadba sidii lagu baabiin kara weeyaan shalay haddii siyaabo kale loo baabinay maantana abaar baa lagu baabin oo lagu dhowranaya waxa loo jeedana waa deegaankeena iyo khayraadkeena iyo maxay ahayd macdanta ilaahay dhigay gaaska khayraadka weeyaan marka waxaan leenahay ummadaas ilaahay baa u maqan innaguna insha allahu tacaala aan garab istaagno ruux kastoo haddaad booyad geli karto fadlan booyad biyaa u gad intaasaa loo qaatay inkastoo booyadiiba hadda loo istaagayo dhaan u dhaamiya male ritigii awrtii iyo waxay dhaansan jireen waa garbabeele wax dhaqaaqi kara male deegaanka intaa ka sokow waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar usoo dego maamul xumida meesha ka jirta maamul xumida meesha ka jirta waxaan rabaa inaan wax yar dib u noqda 2018kii markuu isbedel ku dhacay isbedelkan ay ummadani usoo dhabar adeegtay boqolaal sanana halgan ku socday 30 sano u dambeysay aad ogeydeen inaan halkan taagnaynun oon diidanayn bal maanta waxa weeye Mustafa oo xalana ku dhuumanayay ama Nairobi kaga dhuumanayay uu sheegay inuu isbedel keenay isbedelka ma Facebook baa lagu keenay Mustafa waxaan ogeyn wax kaliya haysto waa Facebook waxa isbedel laguma keeno xaqiiqo weyn nin fulinimo ka carray maamul oo wadi waayay habsi darteed dhuuntay halgankii ummadda Soomaaliyeed aynu habeen kasta maalin kasta barafka aynu taagnayn maamooyinka aad arkaysan gadaashiina fadhiya wallahi billahi barafyada ay dhex taagnaayeen -25 kaasa halgan la yiraahdaa wiilasha iyo gabdhaha Soomaalida ee xabadda u dhigtay shafka u dhigtay kaasa halgan la yiraahdaa wiilasha iyo gabdhaha u bareeray inay xabsi ku jiraan inay qadiyadooda kamira dhaliyaan kaasa halgan la yiraahdaa ma aha marka Nairobi iyo xalana la joogo Facebook content Facebook oo dadka la isku diro orunahay intuu isagu mid qor hadana mid kale u jawaabo gobol intuu wax ka sheego gobol kale u jawaabo ummadda la isku kacay halgan ma aha laakiin waxyaabo nagu maran habaabiye way dadkeenu way baahnaayeen markuu namarin habaabinay xogaa muddo waxaan ku jirnaa waan suuxsanayn calankan fadlan idib calankan waan adoo maxsan dadkeena horta Mustafa waa uu suuxiyay midoo inuu suuxsanay laakiin maanta waa baraarnaa alxamdulillah innagu aad u baahan oo u bareersan calaamada buluuga ee Soomaaliyeed aad iyo aad maarta ugu basan baas uu inahayo rafaasan ayuu inay calankii baan maarta calaamadii orthodox-ka yellow ayd baan bedelaya buluugii Soomaaliyeed baan ku bedelaya intaas ay nala tagtay waan tawaqnay noqon muddo tawaqsan laakiin wuu naseexinay jiirku muxuu sameeyaa markuu dadka qaniinay waxa la intuu qaniiniyo kaafuuf hadana ma dareemayso tuina qaniinay uu naafuuf marka la seexanay marka intaasaan u baahnay waaba seexanay moogtay bal calanka waa calankii ummadda Soomaaliyeed
ay samaysatay ururka ONLF baa 1993-94 markii uu ku guuleystay xorriyadda doorashada deegaanka sameeyay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa diyaar u ahayd oo dooratay samaysay ma aha mid soo keenay laakiin waa la mashquulinayn intii la mashquulinayn hurdada ku maqnayd deegaankeena waa la qaatay dad kale lagu beeray walaalkeen maxamed walaal baa si fiican uga sheekeeyay dad deegaankeena dad kale lagu beeray bal maanta inaga sharaf badan kii soo halgamay kii ka soo shaqeeyay kamaanta ka shaqeynaya waxa kaga sharaf badan wiilka yar iyo gabadha yar ee fooleyda ee axmaarada ka haysta maxay ahayd maslaxyada maaragtay axmaarada ka haysta ka sharaf badan marka halgamaageeni la xaqiray madaxweynayaashii deegaanka la xaqiray siyaasiyiintii Soomaaliyeed shir ay ku maxay ahayd xabsi ay maanta ku jiraan kuwii u soo halgamayay ilaa iyo maxay ahayd boqolaal sano la caayay la aflagaadey la bahdilay waxa weeye guri xunoona waliba isagu dhisin laga yaabo inuu maanta ku mana sheegto by the way intuu hadda joogay waxa weeye hatta dabakaayar kuma darin deegaanada dabakaayar ama jikeer muna ka dhisan oo waxtar umada waa inta maanta la digay waa intii xukuumadda hore ay dhisan marka yeereela taraarin sababtoo caatifada iyo xaaladda jirta baa runtii la tagaysa mararka qaarkood maamulka noocaasa aynu inta soo dhimanay aynu baraf soo jiinay ee xabadan u dhimanay waxa weeye in la yiraahdo annaga keenay horta meena keenin laakiin inay ka faa'iideystaan baa Mustafa madaxweynaha fursad waxa soo martay aad iyo aad wanaagsan fursad dahabi ah golden opportunity baa soo martay waxa soo martay waqti dadkii oo rafaadsan ilaahay intuu keenay laga wada daba dhacay oo loo wada sacbiyay halgankii hubaysnaana waxa weeye inagoo ummadeena u turayna inaan ummadeena maaragtay aan si qaab siyaasi ah oo qori aan wax ku raadino baynu heshiis la galay dawladda federaalka Itoobiya nabad baynu ku nimid wadankeeni shacabkeeni iyo naga gacmaha is qabsanay waxaan rajaynaynaa oo hidideeladeenu ahayd in shacabkeena iyo inagoo gacmaha is haysana aan masiirka ummadeena si nabadgelyo ah ku gaadhno taasoo hidideeladu ahayd laakiin nasiib daro waxa weeye waxa naga garab shaqeynayay wiilkeeni oo aaminay oo jecleen oo soo dhaweysanay markii hore oo ka shaqeynayay wax liddi ku aadanta ummadda Soomaaliyeed wax liddi ku aadanta ummadda Soomaaliyeed tii maanta waxay keentay in inaguna aynaan deegaan kale maanta tagi karin deegaankeena dadka lagu beerayo oo maxay ahayd in tirtirayo siyaabo badan baana dadka loo tirtiraa xabad kaliya lagu ma tirtiro dadka markii deegaankooda dadka lagu beero waxa weeye sida Falastiin baa waxa weeye wadanka yaala idinka qaxnaya marka dambe ogaada waxa tanaana ka khatarsan marka macnaheedu ma markaan saaleenahay inaan dadka dariska aan nacabnahay maaha dadka dariska waligeena waa isag deganaan jirnay laakiin adduunka waxaagana aan isticmaalo deegaankaaga aan qaato kaygana cag ma soo dhigi kartid waxa adduunka ka shaqeysa ma haddii la isku daraysanaya hal example baan idin siin wuxuu ii sheegay ruux ogaal oo ka soo shaqeeyay deegaanka axmaarada misaal ahaan hal wiil baa jiri jiray baa la yiri oo deegaanka Soomaalida deegaankooda ka yimid oo hay'adda WFP darawal u ahaa deegaanka axmaarada ruux ogaal arinta ii sheegay maamulkii deegaanka axmaarada magaca uu ka shaqeeyay deegaanku ka shaqeynay baa ka fadhiistay shir ka yeeshay waxay go'aan ku soo saareen wiilka Soomaaliga ah ee darawalka haduu shaqo kale ma yahay xafiisna ma fadhiyo booskiisa uu haystay shaqadaas wiil axmaara u baahan wiil axmaara jooga oo shaqada yaa u baahan in la siiyo marka Soomaaligan hana dhaafo ha aado deegaankiisa maanta waxa weeye wadankeena oo dhan baa waxa weeye loo dhibaya dad kale axmaara kale waxaan jeclahay waqtigan inoo saamaxaynin laakiin runtii xaaladaha jira ma aha kuwa maaragtay damiirkeenu nasiinay inaan maaragtay muddo dheer aan dhowrano waxaan jeclaan lahaa inaan dhowr qodob oo kooban aan dhaho mid shacabka deegaanka dowladda deegaanka Soomaalida shacabka ku nool midna maamulka midna dowladda dhexe haddaan shacabka ku horeeyo war shacabo waad ogeydeen wixii aan soo marnay sidiisaba dulmigu habeen iskama yimaado uu tartiib u bilowdaa haddii marka uu tartiib u bilowdo aan la iska gaarin oo la iska moosin daadku markuu ina soo galo maxaa sameyn iska moosnaa sooma haddaan la iska moosin ama nijaas waxa la yidhi u dheer baa la iskaga duwaa haddii xumaanta iyo dulmiga marka ay bilaabanayaan aan la iska moosin wax laga qabanin
waxaad ogaataan dulmigaasi intuu daad ina qaadan noqdo inaan inagoo hafanayna meel aan ka qabanaan waayi doono hadday dhowdahay waan ku faraxsanahay ummadda soomaaliyeed see u kacday si nabadgelyo ah in fikirka qofku uu ku cabiro waa waxa weeye xorriyad iyo xuquuq ilaahay shaksi kasta siiyey oo nagu beeray ama ku noolow jigjiga ama minnesota joog ama maxay iyada jarmalka ku noolow adigoo xoraad dhalatay adigoo xoraad noolaan fikirkaaga si xoraad u cabiri ma aha hub ma wadano xabad lama wato qori lama wato dadka la xirxirayo jigjiga la ceyrsanayo baroonada lagu ceyrsanayo wax qori wata miyaad aragteen waa maya wey qalinkii baa laakiin hadda ka adkaa ayaa qori noqday oo sababta xaqiiqadii marka laga hadlay runta la sheego biniaadanka runta ma jecla xaqiiqada markuu ruux weliba dulmi ku jiro ruux markuu dulmi ku jiro xaqiiqada ma jecla runta ma jecla waad khaldan tahay ma jecla eragaasaa ugu daran marka waxaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay u istaaga xuquuqdiina yaan la dulmiin inaad hadashaan ilaahay baa idin fasaxay xuquuqul insaanka kale bay maaragta ku qoran tahay deegaanka aad joogtaan xuquuqdiisa iyo shuruucdiisa ku qoran tahay cidna ha uga gabanina waxgaradka deegaanka aqoon-yahanka siyaasiyiinta aad baan ugu mahadcelinayaa maaragtay runtii dhiiranaanta ay muujiyaan waa in la sii ballaadhiyo wey deegaano badan baan arkay maanta oo runtii ay odayaasha kaceen aad baan usoo dhaweynayaa fiiqoo kalean maanta arkay odayaasha si adag u hadleen deegaan kasta waxaa loo baahan yahay inay saasoo kale u hadlaan shacabku ay diidaan waxa dulmiga ah laga yeeli maayo suuragal ma aha waanu ka soo daalay uma maaragtay cabsi dambe ma jirto dadkuna waxay xoroobaan marka ay derbiga cabsi ay jebiyaan markaas ummadda xoroodaan marka derbiga cabsida waa inaan jebino way bilaabatay jigjiga ka bilaabatay broad daylight ayadoo hadhku cad yahay oo barqa ay tahay baa shiro lagu dhex qabsaday waa alxamdulillah waa guul wey cabsidii derbigeedaa la jebiyey ma aha in la dagaalamayo ma aha in xabada la ridayo laakiin runtaa laysu sheegay mustafa waad khaldan tahay ummadda ma daryeelaysid saniya sana baad ku khaldan tahay waa la dhihi mustafa hadduu nici iyo hadduu jeclaan isaga u taala ha weliba waxa weye dawladdaadu way filgarooday iscazil baa la dhihi resign waa caadi wey halkan inu dhahnaa minnesota maalin kasta biden waxaynu ku lahayn trump soo maahayn marka lagala xishoon maayo marka hadduu dee qofku soomaalida waagaan yareer baan dhihi jirnay ama dacd ama dilac aday ku taalla intaa waa lagu dhihi taa waa inta shacabka xukuumadda waxaan leeyahay dadkaani waxa weeye waa goosad yar oo ka soo haray ummad muddo dheer la gumaaday weli waxaa nagu yaala nabrihii gabdhaheenna iyo wilasheenna xabsiga ku jiray weli runtii ma bogsan dhaawacoodii waa kuwa hadda hindiya dhaawacooda qaarkood yaale lagu qalayo dadka nabarkoodii weli bisil yahay ee muuqdo inaad ka sii danaqdo runtii waa nasiib darro wey madaxweyne mustafa aad baan uga xunnaa arrinta ayada xukuumadda waxaan leenahay arrimaha noocaas ha ka waantoodo hadday u malaynayaan in bilow aadan jujuub iyo qasab iyo caburin lagu xukumi karayo ama lagu haysan karayo horey uma dhicin haddana ma dhacayso mana dhici doonto 720 sano Soomaali tiibel deegaankeena iyo waxa Soomaali ku sameeyeen maxaa dhacay oo ka dambeeyay dadkeenu soo adkeysanayeen hal maalin beeriyadii tuureen marka watilka waxaan leenahay watilka ayaam nudaawilha bayna nas ilaahay baa saasili hadisa quraanka maalmuhu waa isgidinayaan ruuxay maanta ku fiicnay berri ku xumaan kay maanta ku xuntahay berri ku fiicnaan tiibelaf oo geeska Afrika qabsatay maanta xaalkeeda waad arkaysaa seetay ummadda colaadaha waa abuurin already inagu filan waad abuurtay waxaad faafisay madaxweyne mustafa wuxuu faafiyay dadku in maaragtay si qabyaalada isaga loola dagaalamayo si qabiila loo ceyrsanayo arrimahaas waa waxba kama jiro inteenan haddaan maanta u abtirsana mustafa midkaan kasi xigtaan wadna waxa laga qaarkeed 2 iyo 3 kala tirsadaan isaga marka beenta waada dadka waa laga dhaadhiciyo waxa kama jiro wax qabiila oo dadka lagu kala qaybiyay dad wada walaalayna wadana bal xigtidiisa kulliga wadana ummadda Soomaalida dhan waa walaalo wey laakiin isaga wuxuu rabaa inuu ku seeta dheeraysto waqtiga qabiil baa laga ceyrsanayaa kana la waxa isaga qabiilka bilaabay deegaankeena isagoo tiibel dadka xunayso oo xukuumadda xunayso ayayna qabiil iyo qabyaalada ka jirin kama jirin runtii dad wada damqanaya oo rafaadsan oo dhibaataysan baan maantana dadkii shalay walaalaha ahaa ayagoo wax colaado dhex martay ay jirin baa afka la isu wada taagaya bal adigu dadkan ma waxyi bay colaadan xagee ka timid wax la dawladda abuurtay ninka sidii wax dhigta loogu sheegay baa la aaminay waxaan waxba ka jirin marka illusion buu noo sheegay waxaan jirin riyo iyo dhalanteed aan jirin buu noo sheegay xukuumadda marka waxaan leeyahay ka waantooba shalay wixina soo maray dib ha noo xasuusinina nabraha ha ka danqina gabdhaha iyaga iyo wiilasheeda dhaawac ah
iyo qulubtayada runtii uu maaragtay ay u dhaawac ku yaallo waxaan u baahannahay in la bogsiiyo waxaan u baahannahay in la dhayo waxaan u baahannahay dadka ayaga in la mideeyo waa rajadii aan lahayn laakiin nasiib daro taasi waa maaragtay way hogooday marka waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi walla wiilyahow saan kuugu caanalisay maadan igu hambaynin mustafa saanu kuugu caanalisnay ee shacabka soomaaliyeed gacanta kuu qabteen ee lagu garab istaagay maadan ugu hambaynin ogow dowladda dhexe waxaan leeyahay waa gebagaba waa soo gebagabaynayaa dowladda dhexe waxaan leeyahay waddankan ahdaabtii siyaasiga mucaaradka ahaa ee hubaysnaa si nabadgelyo ku joogaan ku yimaadeen uma baahna carqalad iyo maxay ahayday dagaal dambe iyo maxay ahayday duurkoo la galay laakiin xukuumadda deegaanku taasay ka shaqaynaysaa waxay ka shaqaynaysaa waa in dadkan duurka la geliyo laakiin duur dambe oo la aadaa ma jirto meel dambe oo la aadaa male horta jijibun baa laysku caysan ku bishaaraysta meel dambe oo la aadi ma jirto jigjiga xaafadaheena degmooyinkeenna gobolladun baa laysku cayrsan haddii laysku dili haddii laysku dayn halkaan banu wada joogi marka dadkan intaan colaad intan ka badan lasii gaarsiinin fadlan ha la soo kala gaadho meeshan haddii dowladda dhexe ka jirta wey haddii de loo boko colaadii iyo xabadii iyo dhibkiina ummadda soomaaliyed waxay taqaanaa intaan unbay jirta laakiin kuma baaqayna annagu wax xabad ah nabadgelyaan ku baaqaynaa waxa ay dadkeenu maaragtay ugu badisaa nabadgelyada maanta intaynu qabsanay xabad kuma qabsan karayno laakiin dadka haddii lagu qasbo de marka u dambeysa waxa wey waraabadaale dirintiisaa loo tagaa marka waxaan leenahay dadka lasoo kala gaadho xukuumaddan arxanka daran ee abaarta qarinaysa ee dadka maxay ahayd xabsiga gelinaysa ee rabto qol mugdi inay ku haysato la ogaanin laga yeeli maayo ha la soo kala gaadho intaasaan kusoo koobi lahaa waxaan jeclaan lahaa insha allahu tacaala inaynu hawsha noocan aynu sii wadno oo aan afka haddii shacabkeena afka la qabtay innagaa u hadlayna awalba 27 sano soo mana afka mana xidhnayn halkan aan ka qaylinayna mana aamusayno haddii la moodayo in la aamusiin karo ha bilaabo de waxa u dhiman hadda waxa weeye waa keliya sheekadii xukuumaddii hore oo hebel baa arbaa lahaa awal reerkoodii hala soo qabta sooma inta un baa dhiman intaana ku dara dhe hadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu